إنا لله وإنا إليه راجعون. وحنا هلك تعسييننا عبد الرحمن محمد تليانلي وحنا كجريودي ودنك هندية حلبان محمد عبد تليان حلبان عبد الرحمن محمد تليانلي وحنا تعسييننا إسلامك وحي قرنيا طولك أهلية قويسكي عرورتي حاسكي قرابها وحنا لهاي سامر يمان الله ينكسيو مرحوم كان جنة الفردوس الله جيو تحصيل عسان وسو قدنا تيرايا له حلبانادي وسيردي انت ولا شقين جيرين انت قرانيسا مرحوم كان waxaan uga bariyay ilaahay samir iyo iimaan ilaa naga naga siiyo isagana jannada firdaws Allah ka waraabiyo meeshaan taxsiin ka doonaa waa duur jeedaliyeen waa yeel fara badan baanu nahay dhamaan waxaan ilaahay uga bariyay marxuumka inuu jannada firdaws ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aniga oo qalinla cashuur cigaal kamida guurtida meesha isugu timo nabadeynta u timi waxaanu tacsi u gudbeenaynaa ilaahayna janna farso uga baryaynaa taariikhdu maanta 720 geerida xalay warkeeduna soo gaaray in ilaahay jannadii ka waraabiyo qaraabadiisina ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo cid ka soo garanaysa wuxuu ahaa aniga oo maxamed aadan cadde Allahumma naxariiste waxaanu tacsi u diraynaa eheliyadii uu ka geeriyooday Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ku geeriyooday Indiya ku geeriyooday Allahumma naxariisto xalay ku geeriyooday oo bishu ahayd 720 Allahumma naxariisto tacsi baanu ehelkiisii u diraynaa isagana waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay u naxariisto jannadii ka waraabiyo anagu caduur jeedaliyad joogna oo nabadgelyadii halkan aanu u joogno in la isugu yimaado ayaanu geeridaas noo timi saasaanu tacsi ehelkiin ugu diraynaa isna aanu naxariis ilaahay uga baryaynaa waxaan tacsi tiiraanya leh halkan uga gudbinaynaa marxuum xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ku geeriyooday dalka Indiya xalaytoo taariikhdu ahayd 720 waxaan leeyahay ehelkii xaaskii caruurtii iyo dhammaan ehelkiisa oo dhan tacsi tiiraanyalaan uga gudbinaynaa waxaan uga gudbinaynaa xildhibaanadii uu ka tirsanaa waxaan uga gudbinaynaa cid alla cidii maaragtay uu garanaysa waxaan ugu ducaynaynaa jannada firdaws in ilaahay ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daaqatul maut naf kasta way dhimanaysaa geeri xun baa dhacday waanu ka xunnahay waxaan tacsi uga dirayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xildhibaanadu la shaqeyn jiray gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday inuu ilaahay ka siiyo samir iyo iimaan halkan aanu joognaa waa caduur jeedaliyad waa waayeelkii isugu yimi mashaqadii ka dhacday biyo guduud oo nabadaynu yimi geeridaasina la kulantay sidaa darteed baan ugu soo gudbinaynaa tacsi tiiraanyale waana ka xunnahay waana laga naxay wabillahi tawfiiq inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaanu halkan tacsi uga diraynaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle iyadoo ay geeridu xaq tahay waxaanu leenahay qoyska iyo qaraabada uu ka geeriyooday ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo isagana janna firdaws ha ka waraabiyo annagu oo joogna caduur jeedaliyad oo kamid ah nabadeynta ka dhacday shilkii ka dhacay biyo guduud waayeelka badan ee garaad cabdi garaad maxamed hogaaminayo u nimi nabadeynta baanu halkan tacsidaa uga diraynaa iyadoo oo warkaas geeriduna soo gaadhay saaka bishoo 720 marxuumkaasuna ku geeriyooday waddanka Hindiya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun bismillahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aniga oo ah Ibraahim Maxamed Xasan waxaan joognaa caduur jeedaliyad waa 720 bishii 9aad waxaan tacsi tiiraayeel u dilaynaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo dalka Hindiya ku geeriyooday
intii waxaanu ka tacsiyeynaynaa qoyskii iyo carruurtii uu ka tegey iyo ciddii kasta oo garanaysa in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo isagana waxaan ugu ducaynaynaa jannadii firdowsa in ilaahay gaadhsiiyo baan ugu ducaynaynaa kolley dee soomaalidu waxay tidhaahdaa meeshii saddex isugu timaadaba weli baa ku jira ilaahay waa aqbalayaa ducada aan u ducayno in ilaahay jannadii geeyo ciddii kasta oo garanaysana waan uga tacsiyeynaa iyo reerkii iyo carruurtii uu ka tegey annaguna aad baan uga tiiraansanay ilaahay baa keenay waa xaq marka saasaan maxaa waayeelkan isugu yimi hawlo kale u yimaadeen hawli kalena waa fiican yihiin meel fiican bay marayaan magacayga waxaa la yidhi cabdullaahi aadan ducaaleeglan halka waxaanu ka tacsiyeynaynaa cabdiraxmaan maxamed talyanle xildhibaankii Soomaaliland ninkaasoo ku geeriyooday sidan lagu soo gaaray warku xalay ku geeriyooday bishii 27 tahay dalka Hindiya meel ka mida marka waxaanu ka tiyaasanahay oo ka tacsiyeynaa ummadda wixii garanaya iyo ehelkiisii iyo reerkii ilaahay samir yeeman inuu ka siiyo ilaahay samir yeeman ha ka siiyo dhammaanteenba isaga jannadii firdawsa ha geeyo annana waxaanu leenahay intaas baanu tacsidaas aanu soo gaarsiinaynaa halka waxaanu u joognaa waxaanu nahay waayeelkii u soo gudmaday mashaqadii biyo guduud ka dhacday anigoo Axmed Walalac waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu kullu nafsu daa'iqatul maut waxaanu tacsiyeynaa geerida ku timi Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaanu uga baryaynaa jannatu firdawsa inuu ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadeenoo dhan oo inaga siiyo samiriye iimaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun raxmaan raxiinan oo cigaan maxamed xisi gudoomiye jiiriyad taxsiid tiiraanyada waxaan u diraynaa Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ahana heersireeda oo xalay ku dhintay dalka Hindiya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan leenahay taxsiida samiriye iimaan dadkiisii Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin heersireeda marka waxaan leenahay taxsiib aan u diraynaa ehliyadiisii xildhibaanadii dawladdii iyo ciddii garanaysaba bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u diraynaa taxsiib Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ehelkii iyo intii garanaysa oo Soomaaliyeedna samir iyo iimaan Allah ka siiyo gaar ahaan xaaskii iyo carruurtii iyo qaraabadii ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo anigoo Cabdullaahi Maxamed Ismaaciil xidig Maxamed Ismaaciil marka hawshaan u niman Allah noo sakhiro meel fiican bay maraysaa Allah noo sakhiro hawshaan nabadaynta ahaa ee beelaha walaalaha mashaqadii biyo guduud ka dhacday waxaan leenahay ilaahay ha sakhiro ilaahay wixii dhintay halka ku dhintana ha u naxariisto waxaan leenahay dhammaan samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo dhammaantiin dadkii wixii dhintaa way naga wada dhinteen anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Yamal waxaan halkan tacsi tiiraayada uga diraynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo xildhibaanadii iyo intii tiqiin Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo xalay oo bisha 9aad ay ahayd 27 ku geeriyooday wadanka Hindiya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun isagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu janno firdawsa ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisiina iyo saaxiibadiisiina ilaahay samir iyo iimaan dhammaanteen inaga siiyo ilaahay saasaan ka baryaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu halkan tacsiid tiiraanyada uga diraynaa geerida ku timid marxuum Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan Talyanle oo ku geeriyooday xalay oo taariikhdu ahayd 27 bishii 9aad 2017 wadanka Hindiya marxuumka waxaanu ilaahay u weydiinaynaa naxariis janno inuu ilaahay ka waraabiyo qabriga u waasiciyo uga dhigo beer kamida beeraha jannada ehelkii iyo qaraabadii carruurtii shacabkii dhammaan cid kastoo garanaysa ilaahay samiriyay iimaan ka siiyo waxaanu kamid ahayn ergadii u timid dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada biyo guduud ee labada marxuum ay ku geeriyoodeen iyagana waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo ubadkii ay ka tageen ilaahay samiriye iimaan ka siiyo ilaahay wax khayr qabo ugu bedelo halkan aanu maanta ku sugannahay waa deegaanka Caduur Jiidaliyeed oo ay maanta soo booqdeen waayeelka ergada hawsha nabadeynta u soo gurmaday oo aan xusi karo deegaanada ay ka kala yimaadeen oo guud ahaan ka kooban gobolka Sool iyo deegaanada Sanaag mar labaad marxuumka tacsiid tiiraanyada baan u diraynaa iyo marxuuminta biyo guduud ku geeriyooday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.